sidaan iskugu egnahay sidaan u walaalnahay sidaan isku diintanay sidaan isku dhaqannahay baynu walaalona cid sinjigeena doori kartaana ma jirto hilbo wada dhashiyo hayb qureennahay xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu maanta halkani oo hotel Sawqada Sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee gobolka Awdal ee ka yimiday gobolada kala duwan ee Puntland ugu horeyntiina waxa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda kuwaasi oo xildhibaanka uga mahad celiyay soo dhaweynta uu sameeyay maamara waxa ahayd reeborowe ka dhaxmaalo gobonnimadii qof lagu soo dhaweyn lahaa ama qof lagu tacaamulay annaga iyo boqolaalka jiro naga horeeyay ilaa 2000 waan kula tacaamulay waan ugu mahadnaqaynaa dacaayadii hore reeb booraba hadda ka hor ka faafayna maanta xaal mir ma ka bixinayna oo ah maadaama intaan soo keenay anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada maanta soo ajiibay madashan quruxda badan waxaan si guud iyo si gaar ah u mahad celinayaa xildhibaan maxamed abiib xildhibaan waa mahadsantahay baan ku leeyahay aad baa u mahadsantahay marka la yiraahdo jaaliyada reer Puntland ee gobolka Awdal wax ka barta waxa laga yaabaa inuu soo baxo sawir ah dad buug iyo qalin kaliya sita inuu soo baxo waxaan xildhibaan ku sheegaynaa gudoomiyaha aan u sheegaynaa martida kale aan u sheegaynaa in jaaliyada ardaydu aysan ahayn dad buug iyo qalin kaliya sita ay qayb ka yihiin horumarka magaalada ay qayb ka yihiin horumarka bulshada ay qayb ka yihiin isdhexgalka iyo wada noolaanshaha gobolka iyo dadka wiilka kabsuuma iyo libooyo oo koonfurta ah ka yimid ee boorama jooga iyo kan harar iyo hawaas ka yimid iyo kan garacad iyo garowe ka yimid meeshan wuxuu ku joogo waxa weeye waa lahaanshiyo u dareemayo waa magaalo aan laga xigin waa magaalo waxa weeye dhaxalkeeda wax ku leeyahay intanaanu maanta wada aqooyahana maalinkay baxaan waa maalinkay qalinjibiyada jaamacadaha ka takharujaan waajibka saaran ee waxa weeye xaq loogu leeyahay waxa weeye inay ka qayb qaataan horumarka magaalada tusaale ugu qaatana goboladii aad ku noqonaysaan iyo dadkii inaad wixii gobolkan ka jira aad geysaan baa idinka baahan yahay waayo dadku waxyaalo badan baa jira oo aanay ogeyn oo dhabta ah oo halkan ka jira oo dadka waxa laga yaabaa xagga loogu sheekeeyo oo wacyiyo macnaha siyaasadeed oo iskhilaafsan markay dhacaan in la yiraahdo gobolkii saasaa jirta waxba jirta laakiin gobolkii nabadda yahay gobolkii wanaagga yahay aniga bay igu tusaale qaado waxaan joogaa imika dhowr iyo 10 sano waa 15 sano sii galaysaa ma garad 15 sano sii jeegaysa walaalkay waa jooga ganacsi buu ku leeyahay meherad buu ka furtay meel kale uga ma dhaqaaqin anaaba socod bato marmar barigii iyo maraan garowga shaqo tagay iyo maraan meelaha shaqo tagay jirtay laakiin si reerkayga sidii bay wali u degan yihiin waxa leenahay xildhibaan Allah ka abaal mariyo insha Allah sharaftay gobolkaaga noogu sharaftay waxa rabaa in uga faa'iideysto hal kelmad ama laba kelmad aan ku iraahdo bulshada gobolka waxaan idin nahay safiiraan idin nahay waxa weeye milgaha iyo sharafta al xaqan nagu tusteenna bulsho iidan u tagin arag is aqoonna baan idin kaga geynanaa waxaad ogaataan inaad qulub ku beeranaan doontaan idinkoona gobolkoodii iyo deegaankoodii ugu tagin waxa weeye qiimahaas iyo milgahaas gaarka aad leedihiinna waa mid bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Awdal uga soo cinaan jirteen wiligiin waan idinku bogaadinayaa arnin Puntland inta ku leekaaday baan halkan waxaan imid 2012 baa igu horeysay Soomaaliland inta kale nolosha xagaas aan soo qaadanay iyo familka oo dhan ilaa imika jiraan caruurteedii reerkayga garaway ay joogaan marka mar walba waxa la cid gobol Soomaaliya meel kastu qofku habeenka uu gobolku ugu dhaco waa u gurigiisa xildhibaanku aad iyo aad buu u maasanyahay mas'uuliyad weyn oo gobolka iyo degmadaba saarneed ayuu maanta waajibaadkeedii gutayo waa kaas u keenay dhalinyarada ka soo jeeda dhulka Soomaalidu degto meel kasta annagana sharaf bay noo tahay idinkana sharaf bay idin tahay oo taas waxay cadeynaysaa inaad noo tirsantiin bay taas cadeynaysaa xildhibaankuna run ahaantii waxa laga doortay gobolkan Awdal oo gobolka dhanba laga doortay dadka uu matalo ee mas'uuliyadooda hayna qaybad ka tii maadaama deegaankan aad 5 sano iyo ka badan aad ku noolaanaysaan marka boorama waxay kaga duwan tahay dhul badan oo Soomaaliyeed oo gobolada kale ee Soomaalida in ay dadka soo dhaweyso ilbaxnimo dad nabadeed oo waxbarasho ku sii jeeda weeyaan
waxaana keenaysa arrintaas inay dadka soo dhaweyso ilbaxyadii hore ee saylac iyo dawladihii hore ee waqtiyo kumanaan sano ka hor joogay iyo dadkoo dad beeraley ah ayaa keenaysa in dadka la soo dhaweeyo. sidoo kale xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay aad iyo aad baad mahadsantihiin farxad bay noo tahay in annagu idil kulano annagu dad Soomaaliyeed baan nahay sawracaygu iyo sawraca magaaladana waa Soomaali sinjigayaguna waa Soomaali kaliya inta Soomaali oo dhan ku kala duwan tahay inuu kala duwan oo inta siyaasadda weeyay ninkan waa nin saldanadii ka soo jeeday isagoo dawada oo ceelgaabi iyo waysnahay isaga qaran halgeesan wada joognaa iyo boorame iyo wada joognaa nin baa yiri marka jaacada dhiganay nin baa kaftano wuxuu yiri niyo markaan soo bilowno magaalada ka soo bilowno Soomaaliland soo galno la saacad baan ugu horeyso siinaan buuli markaan ma jidan idaan waa ku ma jeerteen wayna gartaan buuli inaan nahay buuli ma garatay deedna waan soo dhaafnaa waan la weydiiyay qolomeed markaan burcamayno barbara hargeys booro markaan nimaadno qolana la weydiiyay buuli dadka meesha magaalada socday ya ee lugeynaya shaqo tagay ardayda darasiga ku socdo ma ka mid nahay buuli farxad bay noo tahay anaga inaan dadka tilmaanta laanahay inaan dadka madartay qoladoodu muhiim ah qofku waxa muhiim ah waxaad wada qabsanaysaan iyo saad wada noolaanaysaa baa muhiim sharaf bay noo tahay ay magaalada u tahay inay dad arday inta leeyahay ka badan ay joogan magaalada waxaad ku soo kordhisaan dhaqaale waxaad ku soo kordhisaan magac waxaad ku soo kordhisaan tayo waxaad ku soo kordhisaan tiro markaad qalin jabisaanna intii hore qalin jabisaan markaan iskuuladka iyo ragii kale war fiican bay naga qaadeen sidaan isku eegnahay sidaan u walaalnahay sidaan isku diintanahay sidaan isku dhaqannahay walaalona cid jigeena doori kartaana ma jirto hilba wada dhashiyo hay qoreennahay marka ugu horeysa reer booramo waxaan leeyahay marka arday uu ku yimaado ka yimaada gobolada Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeed ka yimaado waxaan jeclahay markuu ardayga idin yimaado ID saacadii tuso si arday badan magaalada u timaado qiimaha surwaalkana ka jabiya kashaarkana ka jabiya guriyahana ka jabiya waxaan leeyahay ninka doonaya inuu ciyaalkiisa qurbaa ka keeno ee uu halkan keeno ama ninka doonaya inuu jaga iibsadana iyaduna waa la mid ah laga jabiya jagadaas leh waayo adduunyadu أنا وأبقى وتذكر وأبقى وتذكر أدبر وأبقى سومال لما أبقى يا سومالي ذكر أنا أبقى يا وحنا أبقى يا وتذكر وسير أنا يا مركز صدي أنا تقوم يذكره أيه وقبسنا يا دقالوا هنا وحيا الله ضد فقر يا كباب بحان إلا تردوده أكرته مقالة هذه ضد بدني مادان دقالوا وكوريا سيدا درتين وين صدويته بدأته وين إلى أنت اللي بتقوله بدأته وين احترامك بطو وين قيمه بطو وين وجرى قيمه لا يقانو او لا يرادو قيمها ardayda ka timiday Puntland ama Koonfur Soomaaliya ka timiday wayna jiro de waa ka magaaladiini waa dadka dibna ma aragtay waa arki doontaan inta ka badan dareemi doontaan dadkana imika ma aragtay markay idin daawadaan ay arkaan fariintaan u dirnina way dhageysan doonaan reer Buurama oo dad wanaagsan weeyaan oo sharaf leh weeyaan way dhageysan doonaan way idin ilaalin doonaan waxa ay ka dhimanna weydii sameyn doonaan qodobkan ku dardaarmayaan waxa weeyaan ragga waxaad ku garan doontaan luqadda ku garan doontaan oo ama buu ku oran doonaan ama ma jirto ku oran qiimaha ka jabi aad iyo aad badan ma santiin